السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا نقول حنا سو dhawaada meel boodinida daafadka joogtaan jimco wanaagsan idin leeyahay saaxiibayaal fiidiyoga like saara si saaxiibo wanaagsan uu gaaro saaxiibada nagu cusub ama marka ugu horeeyay channelka Marwahani soo booqday subscribe waa lacag la'aan gambaleelka furo aad u mahadsantiin fiidiyoga hal mar like saar 15 mar iska share garee 4000 kamin sum jidka ku soo jirta dhamaantii fiidiyoga like garee siin share garee si saaxiibo wanaagsan u helno waad ogtiin suuqa kala iibsiga in xalatoo loo noo soo xirmay jalsi abaamiyaan lambarka 9 ku taakeesay 10kii saxiix ee ugu fiicnaa ee la sameeyay dul istaagi doonaa ilaa ay wararka maanta wargeysada ay qorayaan gudaha England ka soo baxa kulmada la dheelaayo isbuucana hal laba ka dhaheena maadaama kulmo waaweyn ay ku jiraan Pep Guardiola shirkiisa jiraayad arin la yaab leh sheega ani madaxan qabsado mi gooreer si taadinka leeyahay intaas oo la falaqeyn doona saaxiibayaal Chelsea wax saxiixa ma Arsenal wax saxiixa ma aysan qaadanin istilna ayada horyaalka hogaaminaysa nala sii jooga dhagiinana ama hay aad u mahadsantiin wixii ra'yiga qaybta commentiga waa noogu wadaagi kartaan saaxiibayaal aan koor marna harto Chelsea asxaabay wad ogeedeen lambarka 9 in habar waalid ay ka qabto العمون نيكي أبامي يعني تجاوز عافماد ومري زكريا أسجنا سيدو كله هالكاس يو إنه تجاوزكم رأمنا أنا وطن هالكاس وجوجي تجاوز عافماد كبو مري كمين سوم وادت كاس أيكن واسو سعدان أبامي لاكيس أسجل لندن أيوب جوجا وكابتن كوري أرسنال حدي كوري برشلونة حدرتان حدي كوحدة كبدا عكتك جلسة كترسن لمبرك سجالة أبامي لو تيري لمبرك سجالة أبامي إن لو ديب ميرا سحاوي لمبرك سجالة إن لقى حشودة إيد المينا وحكل إن لو ديب إيد أبامي بكاس لمبر كان سجالة أساها وار والد جونيو قبو بسم الله إلا يجور مين لمبر كان سجالة حد جلسة إماضو الصور يرسن له بحا مركب العمون لمبرك سجالات ayaa loo dhiibniki abaamiyan waxa ku rajeyna nasiib wacan ku rajeyna abaamiyan oo lambarkan inaan nasiib wacan kala kulantay maadaama lambarkan lambar aad u dhib badan oo yar Romelu Lukaku waa wuxuu iga tag oo yiri lambar ma tiiree basi waa ugu dhacday saasoo nooga tagay marka Chelsea saxiixeeda waa dhameystirtay Liverpool aydan sidoo kale way dhameystir Man City kooxaha dhamaan xal suuq noo wada xirmay taas waa ogtiin inay idinku daaliin marabay waxaan rabaa in aad soo kala codeysaan 10ka saxiix ee maanta la soo qaadanayo ama 8 ama 10ka ama 11ka saxiix ee ugu fiicnaa yaa isdhihi kartaa saxiixana ugu fiicnaa 10ka saxiix aan soo qaadi doono waxa hogaaminaya Roberto Lewandowski oo ka soo biiray Bayern oo ka soo tagay Bayern Munich wuxuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Barcelona 60 milyan oo ugu soo biiray Rafinha oo asna Premier League ka tagay ka soo tagay Leeds United wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Barcelona كونتوني حوغا مليون واسر برشلونة وبيري إيرلين هالاند دورتموند oo kasoo biiray كونتوني كو Man City oo kusoo biiray waxaan ku iriniki aha Gabriel Jesus Arsenal oo ku biiray City oo ka tagay Sterling wuxuu ka tagay City wuxuu ku biiray ayadana wuxuu ku biiray xoogeynta London kooxda Chelsea ku biiray Wesley Fofana 82 milyan wuxuu kaga tagay Leicester City wuxuu ku biiray Chelsea oo ku biiray Chelsea abi Wales walaal Chelsea markaa argasi daacada oo qaslaa wuxuu ku biiray asagana wuxuu ku biiray Chelsea ku biiray Fofana Koulibaly soo saxiixiyada ugu weyn Chelsea ab sameeyay dhig karaariga qaladu Koulibaly oo difaaca kaliya oo xagaa walba ama suuq walba kala iibsi markuu furmo laga daydayo asna Chelsea gacanta hanatay oo gacanta ku dhigtay wuxuu ka soo tagay Napoli iyo halkaas Talyaaniga wuxuu soo caga dhigtay London wuxuuna ka tirsan yahay Chelsea Lisandro Martinez asna wuxuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Manchester United waxa uu Casemiro wuxuu ku soo biiray Manchester United Anthony wuxuu ku soo biiray Manchester United waxaan ku iri waa kee saxiixi ugu fiicnaa markaas dhigi karnaa oo ku soo biiray hadda xidigan ma dhigi karna saxiix cusub waaye Alvarez maadaama 2021 ay gadatay oo 2022 u imaada Man City maahane xagaagi hore City gadatay marka intaano saxiix hadaa wax ay iloobayna qaybta commentiga waa ku reebi kartiin asxaabe maama hadalkuma beegna waxa ay iloow adika ii joogtiin marka intaas oo saxiixan soo qaatay ya isdhii kartiin saxiixana Allah ilaahay kooxdaas ku faa'iiday oo waxa ka tigoya Darwin Núñez astaghfirullah Liverpool intii soo baxana ka baqa Darwin Núñez waxa ka soo bixiya Liverpool 80 milyan oo 70 milyan ay dhiibeen iyo 25 milyan guna gadaal ay ka dhiibayaan ayagana waxa ka soo qaateen RB Leipzig baad ay ku soo qaateen Liverpool Darwin Núñez
وأصول لابنا سدح كل نور وسك قاتي أنت صحيح يا وأركتان صحيح وقفي عن أما وقتر سنة ما سليدهين الله لا صحيح أنا وحقها حقاقا أبسولي أكوحدي سنة كوسو بحايو قاب عيارات كيس في عين هاي أما فان في عن كجرو أنت هذا مرحلة أو كوحا كبرت مركي لغريبو qaybta commentiga noogu soo wadaagaysiin aad u mahadsantiin sida waqtigiina saaxiibayaal qayb nooga siisaan taas waa idinkaga mahadcelinaya halkaas ugu bixayna saxiixiyadii waalid ahaa oo xagaagan suuqa ka dhacay waxay noo jilicsaa halkaas iyo kooxda Manchester United waa ogtiin xal inay Manchester dhashay kulankeedii saddexaad waxay qaateen guul muhiim ah maadaama xil ciyaareedka 5 kulan la dheelay 2 kulan la garaacay 3 kulan way badiyeen David De Gea wuxuu taagan yahay qalaago waa mahadsan tahay khayr Allah ku siiyo clean sheet gorma ugu dambeysay تو كليشيدا يقادوسا wuxuu taagan yahay difaaci ugu haboonaan hadda helay macalinka Manchester United saxal idin sheegay mujaahadkiisa ciyaartooyda mentally ahaan maskax ahaan uu soo diyaariyay physical ahaan uu soo diyaariyay koox tartamayso oo dagaalamayso oo dhiig leh adika idin taalaaray Premier League Manchester kaalinta shanaad ay ku jirtaa waxay taagan tahay iga soo gudub Tottenham iyo waxay taa waxa horteeda taagan iyo waxaan kooxda kaalinta shanaad ku jirtay ahayd tika Koreela muxuu magaceeda Brighton half Albion iga soo gudub Manchester maanta ugu badan 3 kulan gurigooda taas waaday alcamoon marka Manchester waa iskentay nagasti haddana waxay leelayaan Arsenal waxayna u socdaan garoonkii weynaa masrax xariyada Old Trafford hadda daawad doonaa kulankaas ama Arsenal guulaheeda sii wadanayso amba Manchester United la soo afjara boodbood kale Sandro Martinez iyo waa la soo afjaraya Anthony diyaar u yahay sida ay sheegayaan wargeyska ka soo bax Englandka maanta waxay leeyahay xidigan diyaar u yahay lambarkiisa maanta la siinaya wax walba isu soo dhamaadeen tababarku oo kala qayb qaadana waa isku dhamaatay maalinta axad waa arkeena ama Manchester United meedkeeda laga tilaabsaa ama Arsenal waxay dhahay أنا هو جابياش هوريالك إيه ما أنا هاللي كرتان هالكاس أوجد بيكولن كمانشستر يونايتد حلا إيه شيء بيب غوارديولا يسوق أو مركز صاحب بيال بيب غوارديولا وحنا وجدي شركة سجراية دي ما أنتوا وقبت ما دام بري أو سبتي إيه لأن مانشستر سيتي وحا إنجري إنه هاي أملينا نيكيها جابريا نيكيها جيسوس نيكي جيسوس إنه ها أملينا صاحب بيال إنجري مركب بيب وكهاللي حدقان وايان واكنا سناي كاتكا او صاحب لا نقضي بنونيا دلنيسين او اسك سعودين كم باغان waxaan maxaawayaan la illa jeegar leesha meesh ka maqan tababarkii maanta oo shalay ilaa darad uu qaadanayo Jesus ani Jesus kan to iigi maaday Jesus mar hore baxay caafiyo Arsenal oo ka tirsan yahay yasir Allah niki ahaayeen war ilaahay oo kan lacag ma baxsado miya جاكرلش دمينمدي ما هدري اللي هو كدر ستولا عليك وطالع جاكرلش ديار وارير ستكو بدل جيدو حدر تانا إدين بلاوانيسا واكاسا مانشستر يونايتد أرسنال وديلايان أستون فيلا ما ست وديلايان waxaan ku iri kulmada isku sii daba joogan